malab marqura adiga imudsaday hadaa miray ruuxda miiracay ma gaabsadayoon makaga tegin haddaan maya iri mid kala shalay madaxa kuu suray maniyo ubax inaan kaa maarma moogtahay anigu kaa maarma moogtahay maweeliyo xiisa malmaa miyaanay ahay midii hore miyaan marayaa jidkaan maray marbaad i tagtaye markale maya midabya boqoley imagangeli midabya boqoley imagangeli jacayla matalo ma mira dhalo maadaysina maaha lahashadu haddaadigu miistay been marag nafsiga maal waad maftaysatee muuqaaga haddaan muuhan jiray maankaygana kuu masala dhigay adaa iga mayray muxibada marwooy iga mayray muxibada صباح ونكسن صباح لميدا صباح لميدا صباح لميدا سنان فريسينا كي وفريسنا حبرتي أمركاك من ديدي كرا اللي سيما عدو هرفديسنو يا أعوذ بالله أوكي هذا قفل بعاف ماذا كعونه قرعدنا وبلاوان كرينا فريد عصبة أكتر تالميس وديبي كرتانا ما محل هذا gabadhan waxyaa waxunay sameynaysaa waa mahadsantahay haddeertaan waxaan diyaar u nahay quraacda inaan cunno laakiin intaan cunin waxbaan rabaa inaan idiin sheego qasrigan aad u jeedaan ma jiri doonto cid bini'aadan ah in bannaanka loogu saaro qof walba oo imaadana gacmo furan ayaan ku soo dhawaynaynaa laakiin sharciyada gurigan waa in la isticmaalaa qof walbana wuxuu qalmo ayuu ku dhaqmayaa maruu firaaya adigana soo dhawo ayaan ku dhilahaa marti oo keliya meeshaan ma qaadan karto haddii aan u baahno dibadda waa u saari karnaa ma sababeente mahadsan wiilkayga fariid aniga aad ugu faraxsana maadaama aan hortiina fadhiyo waqti aad la qaadanayo runaantii farxad ay ii tahay aad iyo aadna u faraxsanahay allah dadka la beer jilacsana yaa la gaada waa mahadsantiin dhammaantiina idigiisa maruu firaaya waan ka xumaa ma jecleen hadalkan inaan kula hadlo laakiin qasrigan wuxuu leeyahay nidaam oo lagula dhaqmo maalintuu ka taga awoobahey ilaa haddeertaan sharciyadaas maaragtay ayaan tixraacnaa waana ku dhaqannaa haddeertaanna booskii hooyadii fadhiisanaysay ayaad fadhiisatee booskaad haddeertaan fadhiisanaa aabaheyga ayaa fadhiisan jiray antaakii oo dhanna waa laga ogyahay sharciyada annaga aan ku dhaqanno waa inaad ku dhaqantaa wiilkayga adiga intaa lagu dhalin ka hor gurigan sharciyadiisa aniga si fiican ayaan u garanayay fariid maanta oo dhan arrintaama miiska uga hadlaynana waa laga wanaagsan yahay gurigan sharciyadiisa ayaan u sheegaa oo keliya quraacdana waxaa ka weyn sharciyada gurigan loogu dhaqmo aabahayga markuu dhinta kadib booskiisa ma jirto cid qaadan kartaa soo moogid aabahayga markuu dhinta kadib yamaan gurigan adiga ayaa la wareegay waa sidaad noogu sheegtay aabahaygana uu kugu saxiixay ilaa haddeertaan wax caddeena uma hayna dhammaantiinna yamaana gurigan waa qofka ilaa haddeertaan xukumaaya aniga ciidan xukumaya ma lahan fariid mideeda kale idinkoo kalena uma qalbi xume waayahay kollayba maxkamadda ayaa wax walba caddaynayso gurigaanna sharciyadiisa ay sida loo kala qaadan lahaa ayada unbaa go'aanka gaari doonto aniga hal mid oo keliya ayaan rabaa taasoo ah si sharci inaan ku kala baxno ilan xal kale nooma bannaana
aabahayga waa la dilay ee asaga isma dilin shilna kuma dhiman waayahay dhammaantiina waan maqlay afkiina waxaa ka soo baxay waxaan rabaa dhibaatada taagan inaan xaliyo aabahayga qofkay dilina waa inaan dibadda soo saaraa sidaan ogahay maanna wuxuu rabaa inuu garab igu siiyo